madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta qodobada dastuuriga wuxuu ka jeediyay kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaasi oo maanta ka dhacay xarunta Fille Hargeysa. qodobada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soconaysay muddo 15 daqiiqo ah ayaa waxa kaga hadlay 7 qodob oo qaarkood ay ahaayeen kuwa xasaasi ah. qodobada madaxweynaha wuxuu ku bilaabay inuu ka tacsiyeeyo laba xubnood oo ka tirsan golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo geeriyooday intii uu socday kala fadhigii afraad ee kan ka horeeyay iyo sidoo kale geeridii ku timid Allah u naxariistay Professor Jawaari. madaxweyne xasan sheekh maxamuud intii uu qodobadiisa ku guda jiray waxa uu mahad celiyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana uu sheegay in ay meel mariyeen arrimo muhiim u ahaa waxaana uu sheegay sida meel marinta mashruuca dalka korjoogteynta xukuumadda iyo meelmarinta cutubyo ka tirsan ee dastuurka ku meel gaarka ah. dhanka al-shabaabna madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in dawladdu ay deegaano muhiim ah kala wareegtay al-shabaab kuwaas oo sheegay inay ka socdaan xasilin isagoo oo sheegay in uu booqday deegaanadaasi sidoo kalena dawladdu ay ka wado halkaasi in ay geyso arrimaha dawladnimada quseeya iyadoo ay ugu weyn tahay in ay imtixaankii sanadkan ay ka qayb qaateen ee dawladda waxa uu sheegay in taasi tahay kaalin weyn oo ay dawladda Soomaaliya ay gaartay ama guul weyn oo ay dawladda Soomaaliya gaartay. dhanka kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in wada hadallada dawladda Soomaaliya iyo al-shabaab u dhaxeeya aysan ahayn wax aan jirnin oo wararka baraha bulshada la wareejinay ay yihiin kuwa been abuura oo aan waxba ka jirnin oo sal iyo raad lahayn sida uu hadalku u dhigay madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud. madaxweyne xasan sheekh maxamuud golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa intuu qodobadiisa ka jeedinayay waxa uu soo hadal qaaday arrimaha ugu waaweyn ee Soomaaliya sanadkan ee guula ay gaartay sida Soomaaliya in deyntii laga cafiyay cunaqabatayntii hubka laga qaaday xubin ay ka noqotay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo bulshada bariga Afrika waxaana uu sheegay taasi inay tahay guul weyn oo taariikhi ah oo Soomaaliya ay gaadhay. hadal jeedinta madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ku soo hadal qaaday xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya u dhaxeeya waxaana uu sheegay in Itoobiya ku xadgudubtay Soomaaliya isagoo sheegay in Itoobiya dunida la wareegayso in sidii loo nabadayn lahaa iyadii Soomaaliya oo ay doonayso in ay la heshiiso dawladda Soomaaliya waxa uu carabka ku dhuftay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in dawladdiisu diyaar u tahay in wada hadal ay la furto dawladda Itoobiya laakiinse waxa uu hor dhigay su'aal ahayd waa haddii ay ka laabato heshiis beenaadka ay koodii bishii January ee sanadkan la gashay Somaliland. dhanka Somaliland sida caadada ahayd ba qodobada madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ku soo hadal qaataa ama ku carababa deegaanada Somaliland waxaana uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay mar walba u taagan tahay sidii loo midayn lahaa wadajirka iyo xasiloonida dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed. ugu dambeyntiina qodobada madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ku soo gunaanaday dagaal beeleeda dalka ka socda kuwaas oo sheegay inay yihiin kuwa aad u dhibaateeya dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed waxaanu ka dalbaday dhaqanka iyo waxgaradka bulshooyinka kala duwan ee dirirtu ka dhaxayso in sida ugu dhaqsiyaha badan ay nabadda qaataan isaga oo maamul goboleedyada dalka ka dalbaday in ay arrintaasi ay gacan ka siiyaan waxgaradka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kala duwan ee doonaysa in nabadaynta laga gaaro dalka. maxamed cabdiraxmaan mustaqbal. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.